Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dowladda Turkiga oo ka mid ah guudaha caalamka ahna xubinta labaad ee ugu awoodda badan leh isbahaysiga NATO ayaa cod qaaliya kaga hortimid dalalka doonaya inay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO oo ay ka mid tahay dalka Finland iyo Sweden kadib markii ay arkeen dalka Ruushka oo hilbacunaya wadankii Ukraine ee ballaarnaa taa beddelkeeda dalalkan oo ay soo wajahday cabsi weyn oo ay ka qabaan Ruushka ayaa waxay doonayaan inay si degdeg ah ugu biiraan isbahaysiga NATO taasi oo ay dawladda ka riixayaan dalal kale oo reer galbeed ah si loo badbaadiyo ammaanka dalalkaasi balse waxay u baahan yihiin in soddonka dal ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO ay ugu codeeyaan haa balse taasi waxaa ka soo horjeestay dalka Turkiga kadib markii uu dalka Turkigu dib u xasuustay waxyaabihii ay ku sameeyeen dalalkan doonaya inay ku biiraan NATO ee Sweden iyo Finland waxa uu Turkigu ku eedeeyay dalal taageero argagixisada sida PKK oo ay la dagaalanto dowladda Turkigu una aqoonsan tahay koox argagixiso ah iyo koox kale oo ka dagaalanta oo Kurdiya dalkaasi Suuriya oo kadibna uu dagaal ku qaaday dalka Turkiga 2019 dagaalkaasi oo hub uu doonayay in laga iibiyo ay u diideen oo hor istaageen dalalka Sweden iyo Finland ayuu doonayaa inuu kaga argoosto codkiisa qaaliga ah ee yaala miiska NATO waxay leedahay cod qayaxan oo ah in soddonka dal ee ka tirsan ay ugu codeeyaan haa iyo sidoo kale in ay kala sareeyaan awoodda dalalkan maadaama uu quwad ka mid ay yahay NATO Turkigu kama maarmi karaan taasina waxay keentay inay miciin bidaan dalalka Sweden iyo Finland inay wufuud ballaaran u diraan Ankara si ay ula yeeshaan kulamo miro dhala oo ay kaga wada hadlaan dowladda Turkiga arrimaha sida loo xallin karo dowladda Turkiga ayaa doonaysa haatan ballanqaad hirgali kara si loo meel mariyo inay ka mid noqon karaan NATO balse ka mid noqoshada NATO Turkigu waxa uu dul dhigay codkiisa qayaxan isagoo sheegay in loo fulin doono awaamirta uu jeedinayo dalalkan balse cabsida weyn ee ka qaban Ruushku inuu hilbacuni karo ama uu ka dhigi karo qaboorow eeg sidii dalka Ukraine ayaa keenaysa inay u fuliyaan awaamirta uu doonayo Turkigu in loo fuliyo oo ay ammaankiisa qaadaan ama ay damaanad qaadaan waxa uu doonayo inuu ka fushado labadan dal ee doonaya inay ka mid noqdaan isbahaysiga NATO dalka Ruushka oo isagu hore u sheegay dalka Finland oo ay jaar yihiin xuduud dheerna ay wadaagaan in uu ka dhigi doono Donbasska waxa uu sheegay wasiir ka tirsan xukuumadda Ruushku in haddii ay ka mid noqoto ama ay isku daydo dalalka NATO inay ka mid noqoto Finland ay la kulmi doonto cawaaqib xumo aan la mahadin iyadoo haatanba la jaray tamarta ay isticmaalaan dalkaasi Finland ee uga imaan jirtay dhinaca waddanka Ruushka oo ay jartay shirkad qaabilsanayd qaybaha tamarta ee waddankaasi u shidi jirtay ee leerka labadan dal ee ka tirsan qaaradda Yurub ee doonaya inay ka mid noqdaan NATO waa Finland iyo Sweden ayaa waxay doonayaan inay ka faa'iideystaan qodobka shanaad ee ka tirsan NATO si ay uga faa'iideystaan oo uu noqdo mid difaaca ammaankooda kaasi oo dhigaya in xubin ka tirsan NATO oo lasoo weeraro ay macnaheedu tahay in gebi ahaanba ururka lasoo weeraray kadibna ay gali karaan difaac ama weerar dunidoo dhan ayaa heegan gashay kadib markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukraine gaar ahaan dhinaca difaaca xaaladaha ka cakiran wadamo fara badan sida Yurub iyo sidoo kale dhinaca Shiinaha iyo Taiwan ayaa cirka soo shareeray kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ballan qaaday inuu difaaci doono jasiiradda Taiwan laakiin waxay u muuqataa quwadda waddankaasi Shiinaha oo si xoogaysanaysa in uu mar walba uu dharbaaxo adag ka qaadi karo ama markaasi tallaabo military uu isticmaali karo ka mid noqoshada in uu ku biiriyo dalweynaha Shiinaha Taiwan taasi oo ay reer galbeed ku arkaan khatar weyn waxaa sidoo kale jirta awaamiir degdeg ah oo laga soo saaro mar walba xaaladda Taiwan taasi oo haatan markii uu Ruushku weeraray dalka Ukraine ay arrinkan noqotay arrin fudud oo mar walba la weerari karo jasiiradda Taiwan